markii ay noqoto caruurta iyo dilka la garaacayo inta badan waxaan aaminsanahay dhammaanteen macalinku khaasatan wuxuu ku doodayaa ambasaana la igu soo baray so dabcan anigu ii shaqaysay khasab qofkaana u shaqaynaysaa haddana waxaana la fiirinaya waxa weeye ardayda badan aysan u shaqayn so tusaale waxaa ka soo qaadanaya aniga noloshayda anoo ku dabaqaya cilmiga aan bartay number one marka hore doctor maahay arday bartay cilmi psychology kaliya ahay marka waxaan xasuustaa carruurta markaan ahaa macalin baa jiray oo macalin maxamuud la oranayay waxaan xasuustaa waxaa moodaa macalinka inuu ku raaxaysanayo inuu garaaco anisa aaminsanahay macnaha sababtoo ahna waan ku sharixi doonaa sababtaan u aaminsanahay macalinka inuu ku raaxaysanayo inuu garaacayo ama jeclaysan macalinka amana jeclayn weligay marka waxaan xasuustaa 3 sano 4 sano aan dhiganayay dugsiga qad samic waa dhaafi waaye waalidiinta way yaabaan xisdeen qofkan qasam aan dhaafin waa maxay waa laga saaray dugsi kale la geeyay macalinkii kana macalin la mid baa asna way garaaci jiray waa baran waayay isagana sanad 2 sano ku jiray meel lama gaarayo maybe 2 jis ba ku daray soo shanaad meelahaas gaaray almiim waa laga saaray waagda maada macalinkii bari quraanka la keenay oo macalin aha Umar baa la oranayay macalinkana ma garaaci jirin aad iyo aad buu noo soo dhaweyn jiray waxyaabo uu aad noo baray waxaa ka mid ahaa in aan baranay xifdinta quraanka sidoo kalena micnaha uu ku dadaali jiray micnaha inuu na baro soo tusaale kor markii la gelayo subca oo kale haddii aayad aad garan weydo wuxuu ku sheegayaa micnaheeda Soomaali uu kugu sheegayaa soo haddaad garatay waa nasiibka marka wuxuu noogu dadaali jiray inaan micnaha Soomaaliga aan ku dadaalno oo Soomaaliga si fiican u barano oo micnaha aayadda sababta ku soo degtay aayaddu waxay ka hadlaysaa dhamaan waxa soo anagu caruura waxaan xasuustaa sanad iyo sanadii bar meelahaas aan quraanka dhan ku dhameeyay ilaa haddana waa jeclahay taasina waxay abuurtay xiriirka wanaagsan oo quraanka la dhaxeeya haddii wax laga sheekeynayo isla markiiba aayad baa niyadeeda kusoo dadegaysa ku saabsan shaygan laga sheekeynayo sidoo kale axaadiistan uu baray riyad saalixiin buu noo bilaabay waxyaabo fara badan buu kolayna baray marka taas micnaheedu waxa weeye aan ka fahmay hadda markaan cilmiga psychology-ga si fiican u bartay in xiriirka ardayga iyo macalinka ka dhaxeeya ay saameyn weyn aad weyn ay ku leedahay ardaygu qaabku wax u xifdinayo taasina sababtu waxa weeye qaybta maskaxda qaabilsan xifdinta hippocampus baa la yiraahdaa waxay u baahan tahay deganaansho inuu ardaygu degan yahay haddii ardaygu uu ku jiro xaalad ama marxalad maanta dhan uu ka cabsanayo usha ku xigta goormaa lagu garaaci doonaa maskaxdiisu waxay soo sadeynaysaa dheecaamo fara badan oo qaabilsan stresska iyo walwalka cortisolka loo yaqaano taasna qaybta qaabilsan xifdintu waa very sensitive way aad iyo aad bay u tahay xasaas in wax xifdiyo ardayga ku adkaanaysaa maadaama ay ku adkaatayna taas waxay sii dhiirigelinaysaa macalinkii maadaama uusan aqoon xal kale oo ah in la garaaco mooyaane inuu sii garaaco midaas sii baabiinaysa xiriirkii ardayga iyo macalinka ka dhaxayay marka way sii adkaanaysaa maalin ka dambaysa ardayga inuu sii barto sidoo kalena ardaygu markay ciyaalku yaryihiin waa aragtay dhammaantiin inta badan caruur baa dhasheen ciyaalku waxaad u sheegtid buu aaminayaa haddaad ku tirahdid banaanka u baxdid bahal baa jooga wuu aaminayaa bahalka soo haddii maalin kastaba markuu la garaaco maskaxdiisa dheecaan cabsi ay soo sii daynayso walwalka qaabilsan xasuustiisu ay ziira tahay oo waxba sii xifdinayn lagu dhahayo damiin baa tahay ardayga kale la barbar dhigayo dee muxuu kaga duwan yahay markaa ku tiraahdo banaanka bahal baa jooga wuu aaminayaa sababtoo caruurtu waxaa la yidhahdaa waa egocentric waxay aaminsan yihiin adduunka inuu wareegayaa haddaad ficil ku samaysid wuxuu aaminayaa ma ana u qalma in laygu sameeyo ficilkaas ama anigaa sidaa ah marka caruurtii waxaan u sheegaynaa inaysan waxba baran karin maadaama la garaacayo sidoo kalena sidoo walaalka macalinkayga ka dhawaajiyey macalimiin badanoo waxaa jira aanan baran nafsadooda isagu isma yaqaano soo xanaaq meel kale looga soo qaatay ka soo qaatay buu wuxuu ku sameynayaa in uu kula dhaco ciyaalkii ama nafsadiisa si fiican uma garanayo haddaa sifada kugu soo dhigo so 3 waxyaabood baa la fiiriyaa 3 waxa la fiirinayo waxa weeye ardaygan xiriirka kala dhaxeeya macalinka xiriirka kala dhaxeeya waalidka iyo xiriirka kala dhaxeeya waxaan la barayo quraanka iskuul ha noqoto haddii rabto everything waxa kastoo la barayo xiriirka kala dhaxeeya 3 waxyaabood haddii lagu dadaalo si fiican buu baran karaa okay sheyga ugu dambeeya ay weydiisay wuxuu ahaa saameyn noocee ayay ku yeelataa qofku markuu soo koro caruurtu qaabka wax ku bartaan waxa weeye inay ku koobiyayaan inay adiga ka arkaan hadda adigu macalinka tahay
ardayga wax baraysid wuu kaa arko markastoo stress iyo buuq yar ku qabsado markastoo caqabad kaa hor timaado qaabkaad ku xalinaysa ay tahay keliya ul soo qaadatid maxaa u diidaya hadhow markuu weynaado in qaabkaas keliya uu wax ku xaliyo hadduusan dee hadhow uu meelaha kale wax ka baran laakiin inta badan waxay u badan tahay in qaabkaad adigu wax u xalin jirtay inuu isaguna u xaliyo hadhow marka aad iyo aad bay u dhib badan tahay xaqiiqdii